wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo ah afayeenka guud ee xukuumadda ayaa sheegay in shirkii golaha wasiirada Somaliland ee maanta qabsoomay lagu meel mariyay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in si rasmi ah xukuumadda Somaliland ay ugu gacan sayday guddiga abaaraha ee Soomaaliya oo sheegay lacag $10 inay siin doonaan xukuumadda Somaliland kaasi oo loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha waxaana wasiir Cadaani uu sheegay in xukuumadda Somaliland aanay aqbali doonin lacagtaasi qaadashadeeda waxa la gudoomiyay oo ka soo baxay golaha wasiirada in aan la aqbalin 200,000 ee dollar ah ee dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya tiri waxaan ugu deeqnay maamulada Soomaaliya oo aanay jamhuuriyadda Somaliland ka mid ahayn waxaan u sheegaynaa in jamhuuriyadda Somaliland ay tahay dal jira oo madax bannaan waxaanu kale u sheegaynaa dawladda Soomaaliya in ummadda jamhuuriyadda Somaliland ay ka jirto qorsho ku salaysan ka soo kabashada abaaraha wasiirka wasaaradda warfaafinta oo wax laga weydiiyay sababta lacagtaasi ay ku diiday xukuumadda Somaliland ayaa waxa uu sheegay lacagtaasi inay tahay mid siyaasadaysan oo ka duwan dhaqaalihii taakulada ahaa ee ay hore isu weydaarsadeen Somaliland iyo Soomaaliya anagu si walaaltinimo ayaanu ugu geynay markii hore aanu taakulaynta aanu u geynay tii hore ay keeneenna jamhuuriyadda Somaliland bay soo mariyeenoo ceeb damay sameeyeen waxay yiraahdeen jamhuuriyadda Somaliland baan u geenayo halkan iyo nidaamkan ayay soo mareen dawladnimada iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland sidoo ahaan jiray maanta waxaad moodaa dawladda uu madaxweyne Farmaajo uu ka madaxda yahay uu tii ka talaabsaday oo uu doonayay inuu naga dhigo 6 maamulada goboleedyada Soomaaliya maxaan ku raadayay ka jira waxaanu leenahay kama midnihin waxaanu kale ku daraynaa baaqan wala gobol iyo qof jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan oo lacagta aqbali kara ama qaban kara inaanay jirin dambi qaranna ay tahay dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Somaliland ayaa waxa uu beeniyay hadal ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Engineer Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey kaasi oo sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay saxiixday isla markaasina ay ogolaatay qorshaha lagu maalgelinayo dekedaha Berbera iyo Boosaaso waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu sheegay in Puntland iyo Somaliland ay dawladda Soomaaliya u saxiixday heshiiska dekedaha Boosaaso iyo Berbera waxa kale oo aan leenahay haday Soomaaliya saxiixday madaxweynaha Soomaaliya Imaaraadka intuu yimaado muu dacwoodeen oo Imaaraadka muu bariyeen oo ma yiraahdeen arrinta hal la joojiyo ama aanu qayb ka noqono waxaanu kale oo leenahay golo fagaaro adduunka dhan joogay ayaa DB weyn lagu wareejiyay Berbera maalintii lagu wareejiyay hadday saxiixeeda leeyihiin inay yimaadaan beehayd ama inay ka hadlaan ama inay sheegaan iyadana arrintu xado maaha Cabdishakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa